waa muuqaal ka mid ah muuqaalada aan uga hadli jirnay dalalka caalamka. Dalka aan maanta ka hadli doono waa dal dhaca qaaradda Yurub, waana dalka Talyaaniga. Intaan muuqaalka bilaabin, fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe noo saar, videogana like gareey si aan u soo badino muuqaalada uga hadlayno dalalka caalamka. Mahadsanid. Magaca rasmiga ee dalkan loo yaqaano waa Italian Republic. Magaalada caasimadana waa magaalada Rome, ama magaalada ugu weyn dalkan. Waxay dhacdaa gobolka Lazio ee cariga dalka Talyaaniga. Dalka Talyaaniga wuxuu xuduud la leeyahay dalalka France, Switzerland, Austria, Slovenia, San Marino iyo weliba Vatican City, taasoo ah magaalo yar oo ku dhex taalo gudaha dalka Talyaaniga. Badka dalkan waa 301,340 kiiloomitir. Magaalada Rome ku dhawaad sanadkii waxaa booqda in ka badan 8 milyan oo magaalada dalxiisayaashu aad ay u jecel yihiin, waxayna leedahay raadad taariikheed, waxaana ka talin jiray imbaradoriyad kala duwan. Waa dalka tobnaad ee ugu weyn midowga Yurub iyo kan saddexaad ee ugu weyn dalalka la isku yiraahdo European Union ama midowga Yurub. Tirada shacabka ku nool dalkan waa 60,246 milyan oo qof. Luqadda dalkan looga hadlo waxaa loo yaqaanaa Italian language. Lacagta dalkan laga isticmaalana waa lacagta euro ee wada isticmaalaan wadamada midowga Yurub. GDP-ga dalkan Talyaaniga waa 4.481 trilyan, taasoo ka dhigaysa dalka sideedaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Dalkan Talyaaniga waa dal ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Shimbirkan waa shimbir aad loogu qadariyo gudaha dalka Talyaaniga, magaciisana waa Italian Sparrow, waxayna ka mid tahay xayawaan dhaqameedka dalkaasi. Sidoo kale, duureedka waa xayawaan si weyn loogu ilaaliyo gudaha dalka Talyaaniga, wuxuuna ka mid yahay xayawaanada qaranka dalkan. Muuqaalkani intaas ayuu noogu egyahay. Fadlan ha iloowin inaad muuqaalka like garayso, naguna soo biirto channelka